raalli ahaada waxaa jiray in carwa ka laba mobile lagu dhacay laba burcada ay mobile ku dhaceen waxa garabkayga soo istaagaya dhibanayaashii kamid ahaa dadkii carwada ka laga shaqeynay wiilkan yar waa wiilka carwada ka shaqeynay oo social media hada ka aragteen kaamirada fiidiyoga la wareejinayay waa wiilka masoorada uu ku qabtay eedaysanuhu oo dhaca u geystay maantay waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada Hodan halkaas oo ku soo bandhigi doono howlgalkay sifaynta burcada hubaysan ay indhawaaleehidba ka kacday caasimadda magaalada Muqdisho iyo howlgalladii ciidanka booliisku ay sameeyeen waxaan halkan idin kula soo wadaagi doonaa dhacdooyinka sequenceska sidii ay u dhaceen iyo mid walba natiijadeeda iyo cadeymihi aanu ka hayno 27 bishii June 2021 ayaa burcad wadata mooto bajaaj waxay zoona tarabuun dhac ugu geysteen muwaadin Soomaaliyeed muwaadinkaas oo ashtakadiisa ku soo gudbisaday telefoonka xiriirka baraha bulshada ciidanka booliiska oo isticmaalaan 991 ayaanu awood u yeelanay in ciidanka booliiska howlgal ay ka sameeyeen oo burcadii iyo ay cadeymihiiba gacanta lagu soo dhigay 29 bishii June 2021 ayaa burcad kale oo hubaysan waxay dhac u geysteen qof muwaadin ah iridda isbitaal Shaafi ee magaalada Muqdisho halkaas oo muwaadinkii dhac loo geystay oo sidoo kale ashtakadiisa ku soo gudbistay telefoonka 991 ama 991 oo gacantana lagu soo dhigay eedaysanihii mooto bajaajtii uu waday iyo cadeymihii agabkii uu dhacay shalay toole 29 bishii 6 ama bishii June 2021 ayaa laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolad isla markaana waxay dhac u geysteen carwo lagu gado mobilada oo la oran jiray carwa ka iyaga oo carwadaas ka qaatay agab telefoonno ilaa 15 telefoon ah 19 telefoon ah oo 15 kamid ay yihiin iPhone telefoonadaas isticmaalka agabka kale la xiriiray muwaadinkii iska lahaa carwadaas iyo kaamirada CCTV-ga ama closed circuit camera oo qabatay eedaysanayaasha oo falka dhaca gacanta kula jira ayaa ku faafay baraha bulshada isla markaana la soo gaarsiiyay baraha ciidanka booliisku uu kula xiriiro dadweynaha iskaashi iyo dalab codsi iskaashi oo ka gudbisanay shacabka Soomaaliyeed ayaa noo fududeeyay in eedaysanayaashii aan gacanta ku soo dhigno waxa gacanta lagu hayaa hal eedaysane oo kamid ah eedaysanayaashii labada ahaa qaasatan eedaysanihii bastoolada u isticmaalay wiilkii dhibanaha ayaa gacanta lagu soo dhigay kan kale tan saacadaha nagu soo fool Ilaahay idinkiisaan oo kale ayaan ummadda u soo bandhigi doonaa gacanta lagu soo qaban doonaa isla maantay 30 June 2021 ayaa burcad kale waxay dhac ka geysanayeen xaafadda Albarako maqaaxida Aynu Shamsi ka soo horjeedkeeda halkaas oo riboodyo fara badan oo dacwooyin ashtaka ah laga gudbiyay saldhigga booliiska degmada Hodan la soo gaarsiiyay waxaa jira muwaadiniin dhibanayaal ah oo tiradooda oo gaarayso 17 muwaadin oo kala sheeganaya ashtakooyin iyo dhac kala duwan oo la gaarsiiyay xilliyo kala duwan dhamaantood dhibanayaashii waxay ku sugan yihiin saldhigga booliiska degmada Hodan halkaas oo ashtakadooda ay keensadeen markay ka war heleen in eedaysanayaasha gacanta lagu dhigana ay yimaadeen iyagana saas oo kale dhammaan eedaysanayaasha aan gacanta ku dhignay iyo kuwa kale saacadaha soo socda gacanta lagu soo bandhigi doono ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan ku wareejin doonaa hay'adaha garsoorka iyo maxkamadda awoodda u leh si cadaalad u maraan agabkii iyo exhibitkan ku soo qabanana saas oo kale to cadeynta ayaa waxa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan gaarsiiyo inuu socdo howlgal ka dhan ah burcadda hubaysan ee ka kacday gobolka Banaadir maalmihii la soo dhaafay asbuucii la soo dhaafay howlgalkaas ayaa socda waxaana saacadaha soo socda insha Allah soo cirib tiri doonaa burcaddaas dhaca ummadda Soomaaliyeed u geysanayso walow reportka iyo diiwaanada saldhigyada la soo gaarsiiyay u badan yihiin in dadka targetka ah ee burcaddaas ay dhacday u badan yihiin bulshada rayidka qaybta dumarka ugu badan dadka dhaca ay u geysteen walow ay dhibanayaasha dhaca loo geystay qaybaha kala duwan ee bulshada isugu wada jiraan oo ay jiraan rag xataa dhaca loo geystay waxay ku xiran tahay eedaysanuhu hadba agabka iyo tabta uu isticmaalo dadka ku dhaco waxaan rabaa inaan halkan ka gudbiyo fariin aan gaarsiinayno ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa dhammaan inta badan kiisaska dadka muwaadiniinta ah oo la dhacay waxay soo gaarsiiyeen lambarka telefoonka 991 kaas oo ka caawin kara in qofka dhibanaha marka dib la gaarsiiyo isla markiiba uu gurmad degdeg ah ka heli karo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan rabaa dadka inaan gaarsiiyo agabkii hantidii dhammaan la wada dhacay oo nooc walba isugu jirta oo ay ku jiraan mooto bajaaj oo ay ku jiraan mobillo hantidaas ummadda Soomaaliyeed laga dhacay waxaan u sheegaynaa in qof walba hantidiisii intii gacanta lagu dhigo uu heli doono maadaama aan eedaysanayaashii gacanta ku haynay sida hortiina ka muuqata iyo qayb kamid ah exhibitkii ama cadeyntii ay eedaysanayaashu lagu soo qabtay iyo wixii ay dhacayeen dhammaan mobiladaas iyo agabka kale dadka laga dhacay waxaan geyn doonaa oo dahab uu ku jiro maxkamadda awoodda u leh kadib kiiska marka uu soo gunaanado oo xukunku uu dhaco
agabkoodii dadku waxay u soo doonan karaan saldhigii markii hore riboodka ay ka geeyeen oo nawaaxigiisa dhaca uu ka dhaco tusaale ahaan haddii lagu dhacay degmada Hodan oo aad ribood ama ishtaka gaarsiisay saldhiga booliiska degmada Hodan oo biga lagu galiyay marka exhibitkaaga ama alaabtii laga dhacan la helo oo maxkamaddu ay go'aanka ka soo saarto soo dhamaado waxa dib loogu soo celin doonaa saldhiga booliiska saldhigaas booliiska oo laga diiwaan galiyay markiisii hore ayaana diyaar ku ahaan doona qofka muwaadinkan halkaas oo alaabtii u soo doonan doona dhammaan mobilada la hayo waa la wacay dadkooda intii simikaarada ay ku jireen waana la gaarsiiyay in agabkoodii loo hayo oo gacan aamin ay ku jirto lana gaarsiin doono toola ka aragteen baraha bulshada raalli ahaada waxaa jiray in carwa ka laba mobil lagu dhacay laba burcada ay mobil ku dhaceen waxa garabkayga soo istaagaya dhibanayaashii kamid ahaa dadkii carwada ka laga shaqeynay wiilkan yar waa wiilka carwada ka shaqeynay social media hada ka aragteen kaamirada fiidiyoga la wareejinayay waa wiilka masoorada uu ku qabtay eedaysanuhu oo dhaca u geystay ninkanna waa milkiilihii carwada oo burcadu ay u dhaceen marka waxaan u soo istaajinaynaa dhibanayaashan inay marqaati ka noqdaan ogaadaanna ummadda Soomaaliyeedna aan gaarsiino in qof kasta oo dhac noocaas gaarsiiyay uu sar cadaaladda ka baxsan doonin cadaaladana la horkeeni doono Premier Bank waxa uu ku keenay abka Premier Wallet marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga